dagaal beeleed khasaare geystay ayaa ka soconaya deegaanka Jicboor ee galbeedka gobolka Mudug. Dagaalkaani ayaa u dhaxeeya beelo walaalo ah oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Gaalkacyo iyo Galdugob. Waxaana dagaalkaani uu soo bilowday saaka salaadii subax kadib. Dhinacyada ayaana isku adeegsanaya hub leh noocyo kala duwan. Daryanka rasaasta ay dhinacyadu isku adeegsanayaan ayaa laga maqlayaa deegaano fogfog oo ka dheer deegaanka uu dagaalku uu ka soconayo oo ah deegaanka Jicboor ee galbeedka gobolka Mudug. Khasaare aad u tiraabeel ah ayaa la warinayaa dagaalkaasi inuu durbaba u sababay hase ahaatee ma jirto ilaa ay hadda xog sugan oo laga haya khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi uu ka dhashay. Hase yeeshee dadka deegaanka waxa ay sheegayaan inay dhinacyadu isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Labada beelood ee isdiriraya mid kamid ah ayaa maanta weerarka soo qaaday, waxayna weerarka markii hore ay ka soo bilowday deegaan lagu magacaabo Laba Meegaag oo u dhow deegaanka Jicboor oo dagaalku hadda uu ka soconayo. Dagaalku sidoo kale waxa la warinayaa inuu yahay mid sii fidaya oo sii gaaraya deegaano kale oo hor leh, maadaama deegaanka Jicboor oo iminka uu soo gaaray dagaalkuna kolkiisa hore uu ka soo bilowday deegaanka Laba Meegaag ee galbeedka gobolka Mudug. Labadaani beelood ee walaalaha ah ayaa laba maalin ka hor isku dagaalay deegaankan, waxayna iska dileen dad ku dhow 20 ruux. Sidoo kalena waxay iska dhaawaceen tiro kale oo intaasi ka badan. Sidoo kalena saacadii u dambeeyay ay dhinacyadu waxay kala helayeen gurmado kala duwan kuwaasi oo gaarayay deegaanka Jicboor deegaanada aan ka fogeyn. Saakana waxa dib u bilowday dagaalkaasi ayadoo dhinacyadu isku dagaalayaan deegaankaasi iyo deegaanada kale aan ka dheerayn. Maleeshiyaadkani ayaa isku haysta nin maalmo ka hor lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Sidoo kalena waxaa jira colaad kale oo soo jireen ah oo ku saleysan dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka Jicboor ee galbeedka gobolka Mudug. Waxayna dhinacyadu halkaasi dhiiga iskaga daadinayaan waxyaabo aan macno badan lahayn. Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa dhinacyadani waxay isku keeneen fadhiyo kala duwan si loo damiyo colaadda u dhaxaysa. Hase yeeshee dhinacyadu way ku gacan saareen inay colaaddaasi ay damiyaan, sidoo kalena ee dagaalka ay ka door bidaan nabad ku wada noolaanshiyaha. Gobolada Mudug iyo Galgaduud waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ay ku soo noqnoqdeen colaad beeleedyada dadka badan ay ku dhimanayaan. Waxaana muuqan ilaa ay hadda xal waara oo laga gaari karo colaadahaas oo lagu jooji karo dhiiga daadanaya. Dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamuladaasiba dadaal uma yara, hase ahaatee ma jirto ilaa ay hadda guul ay ka gaareen daminta colaadahaasi. Ma u baahan tahay tigidh ama fiiso si aad ugu safarto wadamada aad jeceshahay? Xalana Travel Agency ayaa kuu diyaarisay si ay kuugu fududeyso safarkaaga. Tigidhada diyaaradaha oo qiimo macquul ah, adeegyo gaar ah oo kuu diyaarinaya safar raaxo leh, ha ahaato shaqo, dalxiis, xaj iyo cumro intaba. waxaan khibrad gaar u leenahay inaan ku soo saabno fiisooyinka wadamada soo socdo. Masar 10 ilaa iyo 15 maalin, Hindiya 10 ilaa iyo 15 maalin, Kenya 3 ilaa iyo 4 maalin, Uganda 5 maalin. waxaan kuu ballan qaadaynaa adeeg hufan, qiimo ku raali geliya, maxmil qancintaadan ka shaqaynaa 24 saac. ku xidhnow dunida, dalbo tigidhkaaga ama fiisadaada maanta oo bilow safarkaaga riyada. wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.